الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo gaarnay casharkeena 23aad aan soo gaarnay oo ku saabsanaa tafsiirka Quraanka Kariimka ah. xumaanta casharkeena oo ku saabsanaa suuratu Duha ayaan soo gaarnay. suuratu Duha waa suurad Makkiya walaalayaal, waxay ka mid tahay suuradaha soo degay Nabiga sallallahu alayhi wasallam hijradiisa ka hor. suuradan iyo suuradan soo dhaafnay Alam Nashra waa isku mawduuc, waxay ka sheekeynayaan Nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka sheekeynayaan. suuratu Duha waxay leedahay sabab nuzuul ama sabab ay ku soo degtay. xadiis uu soo saaray Bukhari uu soo saaray wuxuu leeyahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa xanuunsaday, kadib muusan soo kicin habeen ama laba habeen muusan soo kicin. Nabigeena sallallahu alayhi wasallam habeenkii uu soo kici jiray, marka laba habeen muusan soo kicin uu iska jiifay. kadib waxaa u timaaday Nabiga sallallahu alayhi wasallam haweeney ama qof dumar ayaa u timaada oo gaal ah. markaas waxay ku tiri Maxamedow, shaydaankaada ku waxyoon jira oo ku dhibi jiray malaay waxaan u maleynaa inuu ka tagayaan u maleynaya, ayadoo ula jeedo waxyiga Nabiga sallallahu alayhi wasallam loo waxyoon jiray ula jeeda. marka waxay ku tiri shaydaanka ku dhibi jira oo ku imaan jira oo ku waxyoon jiray malaha labadan habeen inuu ka tagaan u maleynaya. kadib Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu soo dejiyay suuradan suuratu Duha ayadoo jawaab laga bixinayo haweeneydaas hadalkeeda. والضحى برقن كان كدارتي والليل يهبين كان كدارتي إذا قرتي سجى وحصل أما مقديو ما ودعك موسى كاتجن أما موسى كسجوت محمدو ربك ربجاد وما قال منكو عرون ومنكو حناقوي ولا الآخرة مد الدنب أي خير كو خير بدن لك أذيك من الأولى مد هرك خير بدن ولا سوف يعطيك دب أي كسين دون ربك ربجاد فترضى مركز ترهال نقون دونتا. ألم يجدك ميوسن كهل ربي سبحانه وتعالى محمدو يتيما أذقو أغونا أو فآوى ميوسن كسو دمين ووجدك ميوسن كهل ربي سبحانه وتعالى ضالا أذقو اللنسان أو فهد ميوسن كسو هنون ودينك إسلامك ميوسن كو هنون وي ووجدك ميوسن كهل ربي سبحانه وتعالى عائلا أذقو فقيرا أو فأغنى ميوسن كديق أو هضن كادقين فأما اليتيم يتيمك مركة فلا تقهرها قصب أو حعنانا وأما السائلة متكوح ويديساناين فلا تنهرها قول وأما بنعمة ربك هذا نعموينكس وكوغا لذيستين وكوغو نعميستين فحدث كشيكي. مركا سورة وحالوغو بالله لا رب سبحانه وتعالى وكل عرنايو برقنك يا هبينك وانا لو وقت وي وحين كنتو سنيسا وقت سوء قيمة بضني هاي ولدونا يقفك مسلم كينو كفا إيديستو. رب سبحانه وتعالى وحوليه هاي waxaan ku dhaartay barqinka ayaan ku dhaartay habeenka markuu mugdiyo ayaan ku dhaartay rabbigaada Muusa ka tagan Maxamedow mana ku caroon way. kadib waxaa la gudagalay jawaab laga bixinayo haweeneydii hadalkeeda ay tiri shaydaankaada inuu ka tagayaan u arkaa. marka Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay Maxamedow horta rabbiga Muusa ka tagin qofka ku waxyoonay oo diinka islaamka ku waxyoonay waa Rabbi subhanahu wa ta'ala way, shaydaan ma ahan. qofka ku waxyoonay shaydaan ma ahan ورب سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى نموسا كاتجنا منو كسجوتين منو كو حناقي وكل جوا مرولب. ولا الآخرة خير لك من الأولى مد الدنب أولو جيد آخرة أياك خير بدل مد هور أدونك أدونك مرك الله فيري دلالكس آخر مرك الله فيري وحبا معهن مرك النبي صلى الله عليه وسلم حال ليه هاي أدونك دلالكس أجيدو يو آخر أكو خير بدن وي. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ربك سبحانه وتعالى مركا آخر تكتو وحبوك سين دونا مركا سترهالي نقون دونتا وحل سين دون النبي صلى الله عليه وسلم لمشيغن والو قريي مركا ربي وحويري ربك سبحانه وتعالى وحبوك سين دونا آخر مركا تكتو مركا سترهالي نقون دونتا. انت اسكدي بسورة وحي قودك شيء حصوصين لحصوصين النبي صلى الله عليه وسلم نعموي ugu nicmeystay iyo sidoo kale dardaaran rabbigan subhanahu wa ta'ala uu la dardaarmayo nabigiisa sallallahu alayhi wasallam. rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay alam yajidka yatiiman fa'awa. maxamedow rabbigaada miyuusan ku helin adigoo agoon ah oo waalidiintaada ay geeriyoodeen miyuusan ku soo dumin oo garab uusan ku siin way adduunkan. wawajadaka daalan fahada. rabbigaada subhanahu wa ta'ala miyuusan ku helin adoo lunsan kadib miyuusan ku hanuunin. lunsanaanta la sheegay Rabbi subhanahu wa ta'ala uu sheegay aayadan ma ahan nabigeena sallallahu alayhi wasallam inuu gaal ahaa ee waxaa loola jeedaa
nabigeena sallallahu calayhi wasalam intii aan loo waxyoon diinkan islaamka ah ka hor waxba muusan ku aqoonin, diin islaam muusan aqoonin, oo qof wuxuu iska ahaa diinka islaamka waxba aan ka garanayn. kadib yaa rabbigeena subxaanahu wa tacaala u waxyooday nabi ka dhig uu hanuuniyey. marka taas ayaa laga hadlaya, uu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala miyuusan ku helin adoo lunsan oo miyuusan ku hanuunin. wawajadaka caa'ilan fa aghnaa, rabbi subxaanahu wa tacaala miyuusan ku helin adoo faqiir ah waxba aadan haysan, fa aghnaa miyuusan ku deeqin oo hodan kaa dhigin. ama hodantanimo midda qalbiga ha ahaato ama midda caadiga ha ahaato, rabbi subxaanahu wa tacaala miyuusan kaa dhigin qof hodan ah. kadib waxaa la gudagalay dardaaran nabigeena sala allahu calayhi wasalam lala dardaarmay. waxaa layidhi fa ama alyatiima falaa taqhar, qofka agoonka ah hadduu ku yimaado ha qasbin oo ha canaanin wey, oo hadalka ha ku adkeyn wey, u jilce. wa ama asaa'ila falaa tanhar, qofka wax weydiisanaya faqiirka ahna ha guulguulin oo ha canaanin, sidoo kale asagana soo dhaweey wey. wa amaa binicmati rabbika, rabbigaa subxaanahu wa tacaala nicmooyinka uu kugu nicmey uu ku siiyana ka sheekey weeye. wadaxaa barqinka aan ku dhaartay iyo waleyla habeenkii aan ku dhaartay idaa goortay sajaa uu xasilo ama uu mugdiyo. maa wadacaka muusan kaa tegin maxamedow rabbuka rabbigaada, wamaa qala mana kuu caroon kuuma xanaaqin. walal aakhiratu midda dambe ayaa khayrun kuu khayr badan laka adiga min aluulaa midda hore kaaga khayr badan. wala sawfa yuctiika dib ayuu ku siin doonaa rabbuka rabbigaada subxaanahu wa tacaala fatardaa markaasaad raali noqon doontaa. alam yajidka miyuusan ka helin maxamedow rabbigaada subxaanahu wa tacaala yatiiman adigoo agoon ah oo fa awaa miyuusan kusoo dumin oo garab ku siinin. wawajadaka miyuusan ku helin daalan adigoo lunsan oo diinka islaamka waxba aadan ka aqoon oo fahada miyuusan ku hanuunin oo diin uu ku waxyoon. wawajadaka miyuusan ku helin rabbi subxaanahu wa tacaala caa'ilan adigoo faqiir ah oo fa aqnaa miyuusan ku deeqin oo hodan kaa dhigin. fa ama alyatiima, marka yatiimka iyo agoonka oo waalidiintiis ay geeriyoodeen, falaa taqhar ha qasbin oo ha canaanin wey, oo soo dhaweey oo garabkiisa gal. wa ama asaa'ila midka wax weydiisanayin falaa tanhar ha guulguulin wey, qofka kuu imaado wax ku weydiisanayo ha guulguulin, waxaad haysasii wey. wa amaa binicmati rabbika, rabbigaa nicmooyinka subxaanahu wa tacaalana faxadis ka sheekey way ee hadda firin. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu barwaaqis oo galladaan ka sheekey weye. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.